wasaaradda hawlaha dhulka iyo guriyinta Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay kulan la qaadanaysaa shirkadaha gacanta ku haya dhismayaasha dawladda gaar ahaan projectska laga maalgeliyo miisaaniyadda qaranka. ajendaha saabsan yahay shirkani waxa ugu muhiimsan oo ugu weyn waxa weeyaan inaynu sameeyno xoojino nidaamka performance-ka contractors-ka ugu muhiimsan ee mashaariicaha sidii ugu haboonaa u fuliyay sidii loogu abaal marin lahaa. dawladdu waxay dawlad ku tahay waa dadka iyo shacabka talada iyo halka wax laga saxayaana inta badan idinka shaqadii si toos ah gacanta ugu haya waxa dhiman idinka wuxuu ogaala marka haddaanaanu idin la tashan waxa weey waxa laga yaabaa inaanu jid kala qaadno. waxaan mar walba soo dhaweynaynaa in wada shaqayn joogto ah ay yeeshaan wasaaradda iyo dhammaan shirkadaha dhismaha. waxaanu qaadanaynaa oo soo dhaweynaynaa fursadaha iyo soo jeedimaad nagula talinaysaan iyo kuwa anagu aan kula talinaynaa waa muhiim taana waan isdhaafsanaynaa. waa arrintii muhiimad sidii raggii hore bay sheegeen in shirarka la joogteeyo la xoojiyo la isu yimaado. anagu ka wasaarad ahaan wasiirkiina waa joogaaye waanu ballan qaadaynaa inaanu shirarkiina joogtayno la tashigiina joogtayno aqoonta idinku duugana aanu qayb ku yeelano waayo aqoonta waxay idin faraysaa inaad qarankiina qayb gelisaan. gudiyada aad ku dhawaaqdayna waa muhiim ururka farsameed samaysanaysaana waa muhiim. wuxuun baan isleeyahay in qodobadaasba in qodobo muhiima hore u socda aan ka wada shaqayn karno. muhiimadda koowaad waxa weeyaan in wasaaradda hawlaha guud iyo dhammaan shirkadaha dhismaha ee dalka mid shacab wax u dhista mid dawlad wax u dhista mid meelo kale wax ka dhisa si ay doonaan wax u dhiseene in kulan weyn iyo wada shaqayn la yeesho taasoo muhiim u ah waxyaabaha ka socda dalka in wax laga qabto oo ilaa meesha ugu hooseysa ilaa sida ugu sarreysa in loo wado. wada shaqayntuna ay noqoto wax si joogto ah loo wado oo aan dhinac iyaga uu ka soconay labada dhinacba ka socdo. taasaan ku dardaarmayaa taana ku dardaarmayaa. waxaan jeclahay inaanu ka qayb qaadano laftayadu horumarinta shirkadaha dhismaha oo wax allaale wixii aanu ku taageeri karno aanu ku taageero.